asalaamu calaykum xaqiiqooyinka la xiriira ururka nato xulafada nato oo la aasaasay bishii abriil 1949 ayaa ka kooban 30 wadan oo ka kala tirsan waqooyiga Ameerika iyo Yurub waana ururka ugu xooga badan xagga militariga caalamka oo idil waxaana xarun u ah magaalada Brussels ee dalka Belgiumka intaasi waa macluumaad laga yaabo inaad kaga aqoon badan tahay kanaalka daawanaysa Asri Media laakiin halkaan aan kugula wadaago qaar ka mid ah xaqiiqooyinka laga yaabo inaad ka aqoon xulafada isku bahaysatay in si wada jira wajahan qatar walba oo ku timaada mid ka mid ah dawladaha xubnaha ka xulafada nato ayaa asaaskooda ku soo beegmay ka gadaal dagaalkii labaad ee dunida ku soo dhawaada macluumaad dhowr ah oo halkaan ku soo gudbinayo oo ku saabsan xulafada nato kadib dagaalkii labaad ee dunida ilaa dhamaadkii dagaalkii qabooba dabayaaqadii qarnigii 20aad nato waxay qaadatay tallaabooyin adduunka oo dhan ah si ay u hubiso amniga xubnaheeda mid ka mid ah xeerarka asaasiga ee nato waa qodobka 5aad kaasi oo dhigaya in weerar ka dhana xubin ka mid ah nato uu yahay weerar ka dhana dhammaan xubnaha waqtiga kaliya qodobkan 5aad laga codsaday ayaa ah kadib weerarkii lagu qaaday daaraha Mareykanka bishii Sebtembar 12 nato ayaa la safatay Mareykanka weeraradii lagu qaaday Ciraaq iyo Afghanistan iyadoo ugu wacantay baaxadda dhaqaalaha Mareykanka ayaa lacagta ugu badan ku bixiyay difaaca gaashaanbuurta nato sanadii 2017 Mareykanka waxa uu ku bixiyay 3.58% GDP-giisa taasoo la micnaa dollar ahaan 685 bilyan UK waxay ku dhowdahay Mareykanka xagga qarashaadka difaaca isla muddadaas UK waxay u qoondaysay 55 bilyan difaaca qiyaastii 2.14% GDP-geeda xubnaha gaashaanbuurta nato ayaa qorsheynaya inay sare u qaadaan ayna gaarsiiyaan saami 2% dakhliga guud ee dalkooda shir ay isugu yimaadeen 2014 ayay ku heshiiyeen in sare loo qaado qarashaadka ku baxa difaaca gaashaanbuurta nato lana gaarsiiyay 2% ayaa waxaa ogolaaday 8 dal halka 6 dal oo kalena iyo 1% inay bixinayaan qarashaadkaasi kuwa kale ayaa iyagana yaboohay intaasi in ka yar markay nato ay fulinayso howlgal xubin kasta oo xulafada ka tirsan waxay keenaan ciidan iyo qalab kadibna waa la mideeyaa kuwaasi waxaa loo yaqaanaa ciidamada nato qalabka kaliya militariga nato ay leedahay waa qalabka digniinta iyo xakamaynta hawada nato sidoo kale waxay horumarinaysaa awoodda diyaaradaha dusha ka ilaaliya waana midda uu hadda weydiistay Turkiga xulafadiisa nato Turkiga ayaa wadanka labaad ee leh ciidamada ugu badan Mareykanka ayaa ku jira halka Turkiga uu noqonayo wadanka labaad ee leh ciidamada ugu badan ee nato sidoo kale Turkiga ayaa wadanka kaliya muslimka ee ku jira gaashaanbuurta nato waxaana ku biiray xulafadan 1951 waana 2 sano kadib markii la aasaasay ururkan labada luqadood ee rasmiga ee nato waa English iyo Faranji xulafada Warsaw ayaa la aasaasay 1955 waxaana lagu aasaasay magaalada Warsaw ee ka tirsan wadanka Poland waana xulafo babacdigiisa gaashaanbuurta nato waxayna dawladihii dunida ay ku kala biireen quwadaha wadanka Jarmalka ayaa xilliga u kala qaybsanaa laba qaybood oo kala Jarmalka galbeed iyo Jarmalka bari waxayna ka kala tirsanaayeen labada xulafo Jarmalka galbeed ayaa raacsanaa gaashaanbuurta nato halka Jarmalka bari uu isna raacsanaa xulafada Warsaw ka gadaal markii uu burburay midowga Sovieti waxaa ku soo biiray gaashaanbuurta nato qaar ka tirsan wadamadii ka tirsanaa midowga Sovieti dawladii ugu horeeyay ku biiray waxay ahaayeen Poland Hungary Czech Republic waxayna ku soo biireen 1999 dabeetana waxay xigay dawladaha Estonia Latvia Lithuania oo iyagana xubin ka noqday 2004 dawladda Montenegro ayaa ahayd tii ugu dambeysay xubin ka noqotay 2017 waxaase kaga dambeeyay oo sanadka 2020 ku soo biiray dawladda Macedonia maxaa laga doonayaa wadamada xubin ka noqonaya xulafada nato waxay leeyihiin wax loo yaqaan membership action plan qorshe hooleedka xubin kasta waxa uu ka koobayaa 5 cod arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha gaashaandhigga iyo arrimaha militariga arrimaha kheyraadka arrimaha amniga iyo arrimaha sharciga cutubka koowaad arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxay u baahan yihiin musharaxiinta yacni dawladaha doonaya inay ku soo biiraan inay yeeshaan nidaam dimuqraadi oo xasiloon raasadaana xasilin nabadeed oo ku saabsan muranada dhuleed iyo sireed xiriir wanaagsan la yeeshaan dariskooda muujiyaan ka go'naanshaha sharciga iyo xuquuqda aadanaha samaystaan dimuqraadiyad iyo xakamaynta shacabka ciidamadooda hubeysan waa inayna leeyihiin suuq dhaqaale cutubka gaashaandhigga waxa uu farayaa musharaxiinta inay dib u habeen ku sameeyaan ciidamadooda militariga si ay ugu biiraan difaaca wadajirka ah halka cutubka kheyraadkana uu isna ka hadlayo u qodaynta lacag ku filan difaaca labada cutub ee ugu dambeeya arrimaha amniga sharciga ay u baahan yihiin wadamada xubnaha ka ah inay hubiyaan nabadgelyada saxda ah ee macluumaadka xasaasiga iyadoo la raacayo xeerarka nato inay keenaan sharci qaran oo waafaqsan isbahaysiga gabagabadii barnaamijkeena kulankii isugu yimaadeen 2018 ra'iisul wasaaraha Estonia ayaa noqday hogaamiyihii ugu da'da yara ee ka soo qayb gala kulanka waxuuna ahaa 40 sano jir waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.